madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre xubno ka socda beesha caalamka ayaa maanta beesha caalamka ama guud ahaanba wadamada kala duwan tusay in Soomaaliya hal ay tahay oo aysan jirin wadamo kala duwan iyo aqoonsi beenaad lagu qaraaban karo. haddaba tani waxay god ku riday oo aad u dheer rajo 30 sano socotay iyo qar iska tuur iyo been loo sheegi jiray dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hargeysa, taas oo ah in la duqeeyay, taas oo ah in ay leeyihiin dawlad gooni ah iyo in ay ka go'ayaan Soomaaliya inteeda kale. wixii maanta ka dambeeya waa ay soo dhamaatay propagandadaasi. wixii maanta ka dambeeya caruurta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hargeysa looma sheegi doono ayaa la yiri 30 sano oo soo socota oo been ah. haddaba laba arin iyo laba fariin oo waaweyn ayay gudbisay munaasabadii caleemasaarka ee firdhiye oo ay goobjoog ahaayeen dowladaha Turkiga, Djibouti, Ethiopia, dowladda Sacuudiga iyo sidoo kale Kenya. madaxweynihii qaranka ayaa aad loo soo dhaweeyay, ciidamo ka soo goostay Puntland oo ammaanka sugayay, isla markaan la sheegay in wax mushaar aysan helin ayaa qayb ka ahaa, kuwaas oo taliyahoodii dhawaan uu sheegay in madaxweynaha qaranka iyo hogaamiyaha dowlad goboleedka ee waqooyi bari inay ka amar qaadanayaan oo ay leeyihiin maamulka yiraahdo waqooyi bari. haddaba waxaa dhawaan la dhagax dhigi doonaa oo dayactir lagu sameyn doonaa dekada Laasqori oo ay Puntland sheegan jirtay hal maalinna hal bulukeeti ama hal dhagax aan la dhigin. sidoo kale dekadan Laasqori waxaa sheegan jiray maamulkan hadda fashilmay ee Somaliland la yiraahdo oo qar iska tuur ka waday, laakiin indhihiisa maanta uu saaray in Soomaaliya ay midaysan tahay. sidoo kale maamulkaas oo 30 sano sheegay inuu Soomaaliya ka go'ay hal maalin muusan dhagax dhigin dekada magaalada Laasqori. haddaba gunta iyo gabagabada waxaa arinta munaasabada iyo ficiladii iyo hadal jeedintii u riyaaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, dowladihii ka qayb galay, waxaana loogu baaqay walaalaha cariisan ee reer Somaliland in ay dadkooda dhinac ka raacaan. haddaba saxaafadda dhexdhexaad kama noqon karto in dalkeedii iyo sidoo kale dadnimadeedii iyo qarankeedii ay ka hadasho. waxaa laga yaabaa in dad badan ay yiraahdaan ninkan oo saxaafi ahaa muxuu warka noocan oo kale u sheegayaa, muxuu ugu bareerayaa in uu yiraahdo Somaliland waa magaalo Soomaaliya ka tirsan iyo waa gobol Soomaaliya ka tirsan, laakiin sharciga saxaafadeed ayaa ibaraya in wadankayga horumarkiisa iyo wuxuu uu yahay aan sheego, isla markaan aan banaanka soo dhigo gobol kasta iyo shakhsi walba oo raba in Soomaaliya la kala geeyo. saxaafadeeda iyo shaqadeeda igama reebayso in qarannimada dalkayga aan ifiyo wax uu yahay iyo in kuwa gobolada ku xeeran u aqoonsan ama ka aaminsan Soomaaliya ahaan marka laga hadlayo in wadan ay yihiin iyo dhalinyarada qar iska tuurka sameynaysa in saxaafadu ay runta u sheegto. haddaba haddii warka noocan oo kale ah ku dhibaayo oo aad doonayso in saxaafadda afka ay qabsato, waa si dhaafi kartaa hana sii gudbin muuqaalka.